وجاي ورا جاي ورا جاي ورا يسيبنا ده يسيبنا دي قاعدين ده ما سمعنا يسيب الدم saacadihii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ay geysay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Dagaalka ayaa waxaa sababay oo keenay isku dhac ciidanka dhexdiisa ah qaasatan saraakiisha kala duwan ee hay'adaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo muddooyinkii dambe aan kala amar qaadanayn. wardegdeg ah magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay wararka naga soo gaaraya ayaa ku waramaya in dagaal culus uu dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ku dagaalamay bartamaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay kadib markii muran uu soo kala dhaxgalay mid ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda ee ku sugan gudaha degmada Baydhabo iyo ciidamo ku sugnaa bar control oo markaasi amniga magaalada Baydhabo ay ka xaqiijinayeen. waxaan kula wadaagi doonaa dagaalka kooban ee dhex maray ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale qasaraha kala duwan ee soo kala gaaray saraakiil lagu soo warramaya in dagaalkaasi ay ku dhaawacmeen ciidanka lafta garan oo duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay u soo dhaqaaqay isla markaana kaabiga ku haya difaacyada duleedka Baydhabo ay ku leeyihiin ciidanka lafta garan oo markaasi doonaya inay difaacyadaasi gacanta ku dhigaan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ee duleedka Baydhabo ku yaala. waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka gudaha Baydhabo ku dhex maray ciidanka dowladda iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa lafta garan duleedka Baydhabo oo ka wado dhammaan arrimahan waxaan ka wareystay wariye Axmed Toronto oo si dhow markaasi ula socday xaaladda guud ee deegaanada koonfur galbeed dagaalka ka dhacay Baydhabo iyo dhaqdhaqaaqyada duleedka magaalada ka soconaya. khadka telefoonka ayuu ku jiraa waxaana wax ka weydiin doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada Baydhabo. marka hore muuqaalka like share aragtidaada qaybta faallada ku dhiiba markaad dhamaysato warbixinta sidoo kalena ha hilmaamin in calaamada subscribe-ka aad noo daawato aad kusoo biirto channelkan haddii aad horey noola joogin xagaaga. khadka telefoonka Axmed Toronto ayaa si toos ah ugu jira. Axmed soo dhawow. magaalada Baydhabo dagaal ayaa ka dhacay ayaa la yiri u dhexeeya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya halkaasi ku wada sugan saraakiil ayaa la sheegayaa in dagaalkaasi ay ku dhaawacmeen. maxaa ka cusub dagaalka Baydhabo ku dhex maray ciidanka dowladda khasaaraha soo kala gaaray dhinacyada halkaasi dagaalka uu ku dhex maray iyo guud ahaanba dhaqdhaqaaqa duleedka Baydhabo ka soconaya? soo dhawow. saacadihii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ay geysay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. dagaalka ayaa waxaa sababay oo keenay isku dhac ciidanka dhexdiisa ah qaasatan saraakiisha kala duwan ee hay'adaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo muddooyinkii dambe aan kala amar qaadanaynin iyo khilaaf dhexdooda ah ayuu ka dhashay dagaalkani waxaana ku dhaawacmay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada hay'adda sugidda oo lagu magacaabo Aadan Dheere kaasi oo dhaawac ah oo la geeyay goobaha caafimaadka ee magaalada Baydhabo. magaalada xiisad ayaa weli ka taagan oo ciidamo qaar ayaa weli waxa ay ka careysan yihiin talaabada lagu waxyeeleeyay arrinta Aadan Dheere oo ka mid ah saraakiisha hay'adda sugidda. hase ahaatee dagaalka oo waqti kooban socday sidoo kale waxaa la sheegayaa in dad rayid ah ay wax ka soo gaareen gudaha magaalada Baydhabo. haddana xaaladdu waa ay kacsan tahay xiisad culus baana ka jirta gudaha magaalada Baydhabo. waa gartay sidaa sheegtayba sarkaal ayaa ku dhaawacmay dagaalkii Baydhabo ka dhacay. muxuu ka bilowday dagaalkaasi? dagaalkani waxa uu ka bilowday kala amar diiddo iyo kala amar qaadasho la'aan mataqaanaa ciidanka dhexdiisa ku jirtay. mid ka mid ah shaqooyinkada magaalada ayay si xooga ciidamadani ku soo mareen kadibna ciidamadii kale halkaasi joogay ayaa iyaguna xabad ku furay. saasuu dagaalku ku bilaabmay in muddo ah ay xabadu dhacaysay gudaha magaalada oo laga maqlaayay hubka noocyadiisa kala duwan. kadibna sarkaalkaasi ayaa dhaawacmay xabadda ayaana istaagtay waxaana suuro gashay in halkaas ninka dhaawaca oo lugaha ay wax ka soo gaareen maaragtay laga qaado goobta lana geeyo goob caafimaad. sidoo kale arrintani waxa ay fursad weyn ay u tahay ciidamada lafta garan oo duleedka magaalada fadhiyo oo maaragtay magaalada kulaalaya runtiina u arka fursad in maanta ciidamadii ay hayeen muddada dheer ay ku dagaalamayeen gacan ku haynta magaalada Baydhabo iyaga dhexdooda ay ka tafan tahay oo iyagu maanta ay xabad isugu jirto oo cadow kale maanta iyagu ay iska fiirinayna ay tahay iyagii inay maanta ay ku dagaalamayaan gudaha magaalada Baydhabo. taasi oo runtii fursad weyn u noqonaysa ciidanka lafta garan
oo hadda diyaargarowga ugu dambeeyey ku jiro oo doonaya sidii ay ula wareegi lahaayeen magaalada baydhabo. waa gartay hadda halkay ku kala sugan yihiin ciidankii gudaha baydhabo aad sheegtay inay ku dagaalameen oo dagaalka uu dhex maray weli goobihii ay ku dagaalameen bay ku sugan yihiin mise xal ayaa laga gaaray oo waa la kala qaaday ciidankii? ciidamada waa la kala qaaday, goobahoodii hore ayaa lagu kala celiyey. waxaa oo ay hadda ay ku kala sugan yihiin, dhaawiciina waxaa la geeyey mid ka mid a goobaha caafimaadka ee magaalada baydhabo. xaaladuna waxaa moodaa hadda inay soo yardegayso maadaama markii hore xabado badan ay ka dhacayeen gudaha magaalada. waa gartay dhanka kale waxaa sheegtay in ciidanka lafta gareen dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ee baydhabo ku sugan ay fursad u tahay. maxay kaga dhigan tahay in ciidankii baydhabo ku sugnaa ee la doonayay inay difaacaan magaalada lafta gareenna ka hortagaan in iyagii dhexdooda ay dagaalamayaan oo iyagii markaasi hadda ay difaac isugu jiraan? maxay uga dhigan tahay maamulka aadan madoobe? runtii aadan madoobe tallaabadani waxa ay ku tahay dhabanjab weyn. muddooyinkii ugu dambeeyeyna culaysyo badan ayuu kala kulmayey hay-adaha amniga ee dowladda federaalka soomaaliya, isagoo amarkiisa aan la qaadanaynin, isagoo oo la siinayo riboodyo sax aan ahayn oo maaragtay aan waxba ka jirin. intaba waa ay haysatay. tanina hadday ku darsantay waxay noqonaysaa caqabad cusub oo runtii dhaawacaysa amniga iyo gacan ku haynta magaalada baydhabo, ragga kalena ay ka faa'iidaystaan. saraakiisha kala duwanna sida aad la socotaba waxaa u dhexeeya khilaaf xooggan oo ka dhashay howlgalladii ugu dambeeyey iyo weliba tan iyo inta aadan madoobe meesha imaaday in ay diidanaayeen amarada aadan madoobe iyo weliba xaaladda sida uu wax ku waday. marka xaalado isbiirsaday ayaa keenay baa la dhihi karaa hadda dhacdada cusub ee ka dhacday magaalada baydhabo iyo in ciidamada dowladda ay iyagu gacmaha is saaraan. waa gartay dhinaca lafta gareen ciidankiisii duleedka baydhabo ku sugnaa waxaa la sheegaya in taliya shub uu halkaasi soo gaaray oo uu ku sugan yahay maantana uu ciidanka la hadlay. maxaa ka soo kordhay dhinaca ciidanka lafta gareen? ciidanka lafta gareen saacadihii ugu dambeeyey waxa ay ku jiraan diyaargarow xooggan oo ay ku doonayaan sidii ay ugula waraagi lahaayeen magaalada baydhabo. taliya shub oo maalmahanba ku sugnaa duleedka magaalada baydhabo soo gaaray shalay galabtii wuxuu ku amray ciidamada in sida ugu dhaqsaha badan ay gacanta ugu dhigaan magaalada baydhabo. waxaana la rajaynayaa maanta in la siiyo amarka ugu dambeysa oo ku aadan in ay la wareegaan deegaano badan oo muhiim ah oo koonfur galbeed oo ugu horeysa magaalada baydhabo iyo deegaanada kale. ninka lagu magacaabo taliya shub waxaa la sheegayaa inuu halkaa u imaaday sidii loo qaban lahaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo weliba sidii loogu guuleysan lahaa dagaalka lagula jiro ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada baydhabo iyo deegaanada kale. marka xaaladdu waxay u eg tahay in saacadaha soo socda la iswajihi doono magaalada baydhabona dagaal xooggan uu ka dhici doono, ciidanka lafta gareenna ay la wareegi doonaan baydhabo iyo deegaanada ku xiriiraysa. waa gartay warar waxaa jira sheegaya in ciidankii dowladda federaalka soomaaliya ee duleedka baydhabo ku sugnaa gaar ahaan halka lagu magacaabo maayo fuulka uu xalay dagaal ku qabsaday. dagaalkaasi kadibna intooda badan ay isaga soo guureen halkii uu dagaalku ku qabsaday ee difaaca ay kaga jireen ee duleedka baydhabo gudaha magaaladana ay soo galeen. maxaan kala soconnaa arrinkaas? deegaanka maayafuulka oo sidaas aan uga fogeyn duleedka magaalada baydhabo waxaa ka dhacay dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidanka lafta gareen. waxaana la sheegayaa in ciidamada dowladda laftigooda ay ka war heleen in taliya shub uu aagaasi uu kasoo dhawaaday, sidaas darteedna ay bilaabeen dhaqdhaqaaq xooggan oo ay wax uga qabanayaan dhinaca ammaanka. taasi ayaa keentay in ay isku dhacaan labada ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo gaaray deegaanka maayafuulka. kadibna waxaa ishaleeleen ciidamada lafta gareen. labada dhinacba waxaa soo gaaray khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh. hase ahaatee ilaa iyo hadda si rasmi ugamay hadlin khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi, inta ku dhimatay iyo inta ku dhaawacantay labada dhinac midna kama hadlin. laakiin ilaha dadka deegaanka ayaa sheegaya in halkaasi ay labada dhinacba khasaare xoogna uu soo gaaray. dagaalka uu ahaa dagaal culus oo jilbaha la isu dhigtay oo runtii aad u xooggan. kadibna ay qolo waliba halkii ay joogeen ay dhaafi waayeen, ciidamada dowladduna ay dib ugu laabteen xeryahoodii, kuwa lafta gareenna ay dib ugu noqdeen fariisimahoodii iyo goobihii markii hore ay ka yimaadeen. xaaladdu markaa maanta waa cakiran tahay magaalada baydhabona xaalad xiisad xooggan ayaa ka jirta. dad badan oo
deganaa xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo waa ay ka barakaceen iyagoo ka cabsanaya in la isfara saaro xaaladuna ay sii adkaanayso taasi oo keentay in deegaano kale ay u barakacaan. waa gartay dhinaca lafta gareen ciidankiisa aad sheegtay in taliya shub uu halkaasi soo gaaray waxaa jira warar sheegaya in saanad military iyo sidoo kale dhaqaale markaasi ciidankan lagu taageerayo kuwa cusubna lagu soo xirigelinayo oo ku sugan gudaha baydhabo la soo gaarsiiyay duleedka baydhabo xogahaas ayaa si weyn markaa loo falanqeynayay warbaahintana u qabsaday maxaa ka jira in duleedka baydhabo hub cusub uu soo gaaray oo aan ahayn hubkii ay horey u haysteen ciidanka lafta gareen cabsidaasna gudaha magaalada baydhabo si weyn looga dareemayo oo mas'uuliyiinta garabka aadan madoobe iyo saraakiisha ciidanka dowladda federaalkaba si weyn uga cabsi qabaan hubka cusub ee la sheegay in garabka lafta gareen uu gacanta u soo galay. maalmihii ugu dambeysay waxaa soo gaarayay hub iyo saanad xooggan ayaa soo gaarayay ciidamada cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ee ku sugan duleedka magaalada baydhabo ilaa iyo hadda lama oga ilaha ay ka heleen hubkaasi hase ahaatee waxaa la sheegayaa in hub culus ay gacanta ku dhigeen kaas oo u suuro gelin kara in ay maaragtay culays weyn ay saaraan hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. sidoo kale waxaa la sheegayaa in ciidamada la soo gaarsiiyey maaliyad iyo dhaqaale xooggan oo la siiyey mushahar tiro badan oo la gaarsiiyey ciidanka lafta gareen si kor loogu qaado moralkooda iyo weliba mataqaanaa dareenkooda lana rabo in hadda looga faa'iideysto oo diyaar u yihiin inay qabtaan magaalada baydhabo maadaama culaysyo badan oo markii hore ku haystay dhinaca hawdka iyo dhulka duurka ah ee ay ku jabhadaynayaan ay kala kulmayeen ay hadda ka baxeen. taasi waxa ay suuro geli kartaa in dagaalku uu weji kala yeesho uuna maaragtay xaaladdu ay ka duwanaato sidii hore ciidamada dowladduna ay culays badan kala kulmaan ciidanka lafta gareen. taliya shub iyo saraakiisha la socotana waxa ay ka shaqaynayaan istiraatiijiyad cusub oo ay kula wareegi karaan magaalada baydhabo dagaalkana ay wax uga bedeli karaan maadaama ay yihiin rag khibrad u leh dhinaca dagaalka oo runtii muddo dheer ku soo dagaalamayay deegaanadan ka dagaalamayay kana shaqaynayay hay-adaha ammaanka ee kala duwan ee dalka. waa gartay ugu dambeyn maxaa laga filan karaa dhinaca cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ciidankiisa taliya shub maadaama uu ku soo biray oo uu yahay saraakiisha hadda howlgalka dib loogu xoreynayo baydhabo hogaaminaysa ciidankii gudaha baydhabo ku sugnaa khilaaf uu soo kala dhex galay oo isku dhac dhexdooda uu jiro maxaa markaasi laga filan karaa magaalada baydhabo suuragal ma tahay in maalmaha soo aadan ay gasho gacanta lafta gareen? magaalada baydhabo hal unba laga filan karaa waxay tahay in lagu kala adkaado oo labada ciidan ee isdul fadhiya midkood uu la wareego magaalada baydhabo oo maaragtay uu qabsado ama ciidanka lafta gareen in meesha laga saaro ama ciidanka kale ee jooga maaragtay meesha laga saaro. waxayna u eg tahay sida hadda muuqata in ciidanka lafta gareen ay la wareegayaan markaan fiirino dadka deegaanka u dhashay ee ku biiraya ciidamada lafta gareen hadday yihiin siyaasiyiin hadday yihiin ciidamo meelo kala duwan ka tegaya iyo hadday yihiin dad kale oo maaragtay taageeraya intaba waxaanad moodaa ciidamada hadda jooga iyo baydhabo iyo weliba maamulka cusub ee aadan madoobe uu hogaaminayo inay hadda ay sii gelayaan xanibaado iyo taageero la'aan baahsan oo kala kulmayaan bulshada qaybaheeda kala duwan. وهاجاكاسي waxa uu ahaa wariye Axmed Toronto naga warbixinaya dagaalkii baydhabo ka dhacay iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada guud ee magaalada baydhabo duleedkeeda ka soconaya wixii ka soo kordha tabintan mid xigta ayaad ku daawan doontaa si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela wararka aynu halkan ku baahayno muuqaalka like sar aragtidaadana qaybta faallada ee commentiga ku dhiibo.